madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Dr. Cabdikariin Xuseen Guuleed oo booqasho ku jooga dalka Uganda ayaa kulan waxa uu kula yeeshay xarunta safaaradda Soomaaliya ee ku leedahay magaalada Kampala jaariyada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanada dowlad goboleedka galmudug ee ku nool dalka Uganda. kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay waxgarad culimaawidiin haween ganacsato iyo qaybo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha ku yaal dalka Uganda ee ka soo jeeda deegaanada dowlad goboleedka galmudug. وماسنته هذا أساس بدلنا ما هيو نفسي درادنا مرة يمكن وماسنتي أنت نقول سوق بشيء أنت قبل قابسي على كحول المارتين قيب كقات سولوتي سب لوينا وسوق كم نوجد هذا ما ستين وحنا لنا هاي بدل ما كمان سوداو كم بالات تكجوا قاعد كتاجرتين ما ملك هذا إيمارتين ولا عقبتين كلهم حالنا هنو رابطه أنا وقت أنت كلاكسو المدن أو هي كاسو مري هناك قصص بسم الله إلى قدام يسير راح يوقعها ومدة أردنا حكينا والبنسا هناك سوق يقدروا سيداي ما يبغوا يدخلنا danjiraha Soomaaliya u jooga dalka Uganda Ambassador Said Ahmed Sheikh Daahir oo ka hadlay munaasabada lagu soo dhaweynayay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa uu ka waramay qaababka ay Soomaalidu isugu xiran tahay marka ay ku nool yihiin meelo ka baxsan dalkooda. madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Dr. Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa isagu waxa uu sharaxaad dheer ka bixiyay heerarka ay soo mareen qaab dhismeedka maamul goboleedka galmudug iyo waxyaabaha ay higsanayaan. arrimaha la xiriira dadka Soomaalida ee dalkan ku nool xaaladaha iyo arrimaha soo wajaha mararka qaar waqti badan iyo soo qaatay maalinba meel bay soo marayeen diinteeda dadaal weyn u soo geystay dhinaca kalena waxaan aragnaa inay yihiin niman sharwadayaashii al-shabaab la dagaalankoodii iyo waddanka iyo deegaanka in laga xoreeyo inay dadaal badan ku soo bixiyeen. waxaan marka anagoo qadarinayno qiimahaas badan ay ummadda ugu fadhiyaan anagana noogu fadhiyaan waxaan runtii u aragnaa inay lagama maarmaan tahay inaan wada hadal la yeelano inaan xooggeena iyo xooggooda aan isku biirino inaan maamulka ku soo darno inaan tanaasul kasta oo suurtagal oo u muujin karnaa. cilmi cismaan faarax boodhari raadiyaha iyo telefishinka qaranka Kampala.